haweenka jaaliyadda Khartoum State of Somalia ee ku dhaqan wadanka Finland ayaa waxa ay ka qayb qaateen maalinta nadaafadda deegaanada Khartoum State of Somalia ee 18 May oo sanad walba la xuso waxaana dhinacooda ay ka qabteen nadaafadaasi isla wadanka ay ku nool yihiin ee Finland sidoo kale waxay haweenkani dirayaan fariin ku saabsan nadaafadaasi iyo in la xoojiyo dhamaanba deegaanada ay degaan Khartoum State of Somalia haddaba muuqaaladii aan ka soo diyaariyay iyo sidoo kale warbixinadii halkaasi ay ka jeediyeen haweenkaasi waxa kamid ahaa sida tan meesha tan maanta waxaan u nimid maalintii loo asteeyay weeye nadaafada Khartoum State of Somalia maalintii loo asteeyay nadaafadeeda weeye nadaafadan ka shaqeynaa waxaan dadka ugu baaqaya in meel kasta ha jooge maalinta loo asteeyay 18 May in meel la joogaba dadka reer Khartoum nadaafada ka shaqeeyaan yaan ku guwaabinayaa dadka Khartoum waxaan leeyahay ilaahay weyna waahidka waxaan idinka baryayaa inuu iskiin afgaransiyo isna soo kiinjadiyo qalbigiina qulubtiina isu soo jeediyo dantiina aad garataan dalkiina aad garataan Soomaalinimada aad garataan islaamnimada aad garataan meel ay joogaan bad Soomaali meel ay joogto dadka Soomaaliyeed waa salaamaya dal iyo dibad Soomaali Maxamed waa salaamaya gacantana ina isqabsato insha Allah yaan ilaahay ugu rajayna Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha guulaysato Khartoum ha guulaysato Khartoum ha guulaysato shirku ha guulaysto shirka Khartoum ha guulaysto بسم الله الرحمن الرحيم دمان سومالي وسلامية مدو يمد دربا إلهنا وحنا قبريا نبتقلين حريس ميل على الميل يشوجان با إن سوماليا مدودو إن سوماليا هل من نقطة إن عرن كده بلوجها لو سويعشوا أنت كذب أنا وحنا حسينا أولها النظافة سديد طبعا كمي سولي السناق عين أولوه دي نظافة اللي قلنا نظافتنا يه waxaan ka nadaafadinaynaa annaguna halka aanu joogno baanu nadaafada annaguna aanu ka qayb qaadanaynaa meel kasta oo ay joogaan dadka u dhashay sool iyo sanaag iyo cayna sidaas oo kale wad qaataan baanu doonaynaa insha Allah oo loo wada istaago oo 18 May ay tahay maalinkii inoo astaysnayd waxaan ku leeyahay taariikhdeena innaga inoo ahayd inaynu nadaafada ka shaqeyno sida inaanu meelin joogno oo shaqeynaanu doonaynaa ilaahayna waxaanu ka baryaynaa in Khartoum ay guulaysato danaheeda iyo hadafka ay leedahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo la garab galo in kasto oo majaxaabinaysa in kasto oo dhibaato maalinka la maaqsan iimaanka Allah ku sugo Soomaaliyana Allah mideeyo dadkeedana Allah mideeyo meelan joognana Ilaahay nabadgelyo naxariisna siiyo baan Ilaahay ka baryeena kiin nabadda Soomaaliya rabana Allah adkeeyo meelan joognana Allah na mideeyo Ilaahay taasaan ka baryeena subhanahu wa ta'ala shirku ha guulaysto Ilaahay idankiisa nabadgelyana Allah siiyo kii lagu najaxo Allah ka dhigo la isku raaco sooleysana gacan isku raaco Allah ka dhigo allana ha mideeyo alxamdulillah rabbil alamin sida ka daaray waxaan sugnimi sooliya sanaaga yacayn Soomaaliya state kayki wixii Soomaaliya danaynayana waa ku jira kama socona waa ku jira wixii Soomaaliya danaynaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala nin walba Ilaahay asoo hadeeyo nin walbana Ilaahay subhanahu wa ta'ala meeshu jooga Allah u barakeeyo dulmi wixii isku wadana Ilaahay subhanahu wa ta'ala Ilaahay ha kala dabaalo Ilaahay uma kala dabaali kare nagu waxaan kala dabaari karaa maahay yasaay salaamu calaykum maanta meeshan waxa u joognaa Allah nadaafada Khartoum State of Somalia Khartoum ha noolaato Maxamed Bashiir oo Maxameda telefishinka caalamiga ee Somali Journal Helsinki Finland